sanadii 1987 ayuu iibsaday ninka reer Mareykanka ee lagu magacaabay Steve Rothstein tigidh dahab ah oo ay lahayd shirkadda diyaaradaha ee dalkaasi Mareykanka qiimo dhan $250,000 Mareykanka kaas oo u saamaxaya inuu si bilaash ah ugu safri karo duulimaadada shirkaddan noloshiisa inta ka dhiman wuxuuna Steve safray noloshiisa in ka badan 10,000 oo safar halka uu mararka qaar u safri jiray si uu ugu soo dhax cuntay diyaaradda amba uu ugu soo dhax daawada ciyaaro kuna soo noqdo gurigiisa saacada kadib mararka qaarna waxay diyaaradu u hayeen hoy oo mar qura ka mudagi jirin wuxuuna Steve ku kalifay shirkaddan inay u jarto tigidh dhan 22 milyan oo tigidh taas oo ka dhigtay shirkaddan inay cancel gareysay gabi ahaanba tigidhkii dahabka ah ee ay siisay ninkan sanadii 2008 balse Steve kamuu hadhin wuxuu ku soo oogay dacwad uuna ka guuleystay iyadoo uu waliba magdhow ahaan loo siiyay lacag dhan $3 milyan oo dollarka Mareykanka ah loona caliyay tigidhkiisii dahabka ahaa kuna sii safri doono diyaaraddaas inta noloshiisa ka hadhay waliba si free ah